Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan rabaa in muuqaalkan aan si kooban uga hadlo barnaamij ardayda anfacayo, gaar ahaan ardayda computer science-ka. Barnaamijkan waxaa bixiso GitHub, waxaana la yiraahdaa GitHub Student Developer Pack. Barnaamijkan horta waxaa waaye markaas in waxyaabo badan oo lacag ah in markaas ardayda ay free ku helayaan markaas si lacag la'aan ay ku isticmaali karaan haddii aan lahayd software oo markaas oo ardayda muhiim u ah oo waxyaabo kala duwan ku qabanayaan, haddii aan lahayd platforms hosting loo isticmaalo, haddii aan lahayd markaas website-yada oo domain name laga gato markaas in ardayga uu ka heli karo domain names lacag la'aan ah si markaas practice-ka iyo waxyaabaha uu sameynaya markaas ay ugu saacido. haddii noqon lahayd courses online ah ama cashiro online ah ama tools oo la isticmaalayo oo markaas oo lacag kaga xiran in barnaamijkan ay si free ku siinayaan ardayda. haddii markaas asla dul tagno barnaamijka markaas ama si kale waxyaabaha ardayda ay free ku helayaan uu barnaamijkan uu ka saacidayo waxaa ka mid ah barnaamijyo badan oo horta uu free uu ku helayo ardayga oo ilaa iyo 100 gaarayo. listiga horta lambar 1 waxaa kaga jiro Canva. Canva waxaa dhihi karaa horta wuxuu ka mid yahay barnaamijyada ugu muhiimsan oo markaas package-kan ku jiro ama si kale ardayga oo barnaamijkan qaataa markaas barnaamijyada helayo uu ka mid yahay. Canva waxaa waaye platform markaas oo markaas graphic design-ka anfacayo, ama haddii aan dhahno waa markaas Photoshop camal waaye oo drag and drop oo qofka markaas video editing ku sameyn karaa, wuxuu ku sameyn karaa social media post-yada lagu sameeyo kolento oo ku sameyn karaa haddii looga noqon lahayd haddii wax kasta oo graphic design la xiriiro ayaa lagu qabtaa Canva. marka maybe in badankiina yaqaanaan. marka waxaa ka mid ah Namejoy ka mid ah oo markaas oo domain name laga gato, sidoo kale hosting waa bixisaa. laakiinse domain name-ka ma ahan domain name-ka rabtid kaliya, waxaa waaye domain name waaye oo domain name-ka free queries waxaa waaye hal domain name oo domain ah. sidoo kale waxaa helaysaa SSL certificate oo iyadana 1 year ah oo free queries. barnaamijyada badan markaas ilaa iyo 100 barnaamij gaarayaan. JetBrains ka mid ah ama JetBrains, Educative ka mid ah, Name.com ka mid ah oo iyadana domain name bixiso. iyadana waxaa ka helaysaa hal xabo domain name iyo sidoo kale hal xabo oo SSL certificate. sidoo kale barnaamijyo badan ayaa meeshan ku jira markaas oo ka mid tahay Bootstrap Studio, GitHub Builds ka mid ah oo iyadana loo isticmaalo in markaas hosting ku sameysid. barnaamijyo badan ayaa meeshan ku jira oo haddii qofka uu soo galo oo ka raadin kara markaas mid walba arday kasta mid buu u baahan yahay oo waxaa ku jiraan platforms online wax looga bartaa ku jiraan. waxaa ka mid ah MongoDB ka mid ah markaas oo iyadana MongoDB Atlas kaluudkeeda oo markaas lagu siinaya markaas free ku helaysid haddii aad akhrisaan markaas benefits-ka meesha ku xusan. oo MongoDB Atlas free waaye, laakiinse waxay free ku tahay waxay tahay storage lagu siinaa oo 2 GB camal si markaas waxyaabo yaryar oo cloud hosting-ka ugu sameysan kartid. laakiin markii barnaamijkan aad qaadatay markaas waxaa ku helaysaa markaas packages-ka oo lacagta ah qayb ka mid ah ayaa markaas si free ayaa ku helaysaa. barnaamijyo ilaa iyo waxaa ku jiraan adiga 100 gaaraya ku jiraan oo markaas midba midka kale uu kasii muhiimsan yahay oo haddii aad dul timaadaan oo fiirisan markaas waxyaabo badan oo idinka anfaca ka heli kartaan. waxaa ka mid ah Stripe ka mid ah, iyadana waxaa loo isticmaalaa payment-iska loo isticmaalaa oo website-yada e-commerce badan lagu isticmaalaa. marka barnaamijkan markaas si markaas u dalbato horta waxay kaaga xiran tahay ID kaaga xiran tahay ama waxay kaaga xiran tahay adiga ID card ama si kale Gmail oo markaas jaamacadeed ama wax cadeynaya yani in arday tahay. markaas yaa u dalbato meeshaan ku dhufanaysaa sign up for student developer baa ku dhufsanaysaa. ma ku dhufsato page-kan ku keenay ama page-kan ku keenay waxaad dooranaysaa get student benefits aad dooranaysaa. markaas sidoo kale waxay bixiyaan teacher benefits way bixiyaan, laakiin fiidiyoga waxaa u hadlaynaa waxay tahay student benefits-kiisa. markaas waxyaabaha markaas oo loogu baahan yahay ardayga waxaa waaye to qualify for the student benefits you must markaas intaana ku xusan markaas in ardayga markaas uu soo dirsan karo high school inuu soo dirsan karo secondary school ID-giisa ama college ID-giisa ama university home school similar institutionada markaas la midka adiga yani waxaa laga rabaa ID ardaynimo wax ardaynimo cadeynaya inaad dirsatida laga rabaa. sidoo kale ama email markaas oo jaamacadeed ama email yani verified ah oo emailada badan jaamacadaha bixiyaan jirto. sidoo kale GitHub account inaan leedahay haddii aadan GitHub account lahayn markaas
waxaa soo samaysanaysaa GitHub account. Sidoo kale intan waa in 13 sano uu ka weyn yahay, that simple waa midaasne. Sidoo kale inta meeshan wuxuu kugu soo bandhigayaa markaas emailka markaas oo ku soo sameysay GitHub. Hadda GitHub ay samaysan yahay uu kaygu ku jira marka uu sameeyay emailkayga GitHub uu samaysan yahay oo markaas automatic u soo qaatay. Meeshan aad dooranaysaa marka foomka buuxinaysid emailka dooranaysaa. Sidoo kale inta meeshan waxay sheegaysaa markaas magaca jaamacadaada sheegaysaa oo markaas wuxuu ku leeyahay haddii magaca jaamacadaada oo meesha aad ka weydo hadda haddii aan fiirino University of Somalia oo kale inta haddii aan ku fiirino Somalia Uniso wuu soo qabanayaa iyadoo sidoo kale inta wuxuu soo qabanayaa yani website-kooda URL-kiisa. haddii markaas jaamacadaada meeshan ka weydo waxaa lagu leeyahay markaas page-ka kale inta waxaa lagu weydiin doonaa yani information kala duwan yani sida jaamacadaada markaas haddii website leedahay oo kale inta meesha ku taalo oo kale inta waxyaabahaas lagu sii weydiina. laakiin meeshan laga helo magaceeda midaan oo kale ku jirta waa dooranaysaa bis kaliya. meeshan waxay sheegaysaa yani sida uu isticmaalaysaa camal barnaamijkan sida uu isticmaalaysaa. waxaa dhigi kartaa bis for educational purpose yani waxaa rabtaa meeshan ku qoraysaa just comment lawaa dan waa dirsanaysaa. markaad dirsatid kadib iyaga markaas wuxuu kuu soo dirayaan email haddii laga aqbalay iyo markaas haddii laga diiday. ana marka hore 2 mar isku dayay oo ID markaas uu dheedkiisa dhacay diray waa lagu soo celiyay waa laga diiday. mar dambe marka waxaa diray mid dambe oo yani dheedkiisa verified yahay. marka sidoo kale inta marka ID-ga dirsanaysid muhiim waxaa markaas sanadkoo dhacay sidoo kale inta way fiirinayaan ID-ga markaas waa inuu ahaadaa mid markaas oo yani uusan dhicin sanadkiisa ama sanad la soo dhaafay uusan ahayn. markaas wuxuu ku soo dirayaan email wuxuu ku soo dirayaan markaas haddii laga aqbalay ku soo sheegayaan haddii markaas oo reject laga dhaana ku soo sheegayaan labadaba. marka waxaan rajeynayaa barnaamijkan in arday badan ay ka faa'iideysan doonaan oo yani faa'iidooyin badan u lahaa doono. marka videogan intaan ugu talagalay oo in barnaamijkan ay arday badan ka faa'iideysato. marka wassalaamu calaykum.